isiiye somahan markii dambana uu iga jeclaaday somahan soo marka saas waayno inaga jacaylkaan ayna jacaylka ilaahay ayaa ka baaxad weyn noloshu waxay ahayd mugdi laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay sooma mararka qaar samirkaaga la fiiriyaa moogtahay itixaana lagu dhiibay itixaankaas inaa ku baastaa la fiirinaya marka afartii beri la soo dhaafay waxay ahayd maalmo xun oo dee qadii la dhow nafsad ahaan qofna ka kaban karin balse iimaanka taam laga dhigaa alxamdulilah la dhahaa kaas itixaan waano inaa samirka inaa badiso waayo haddii waqtigaas waxaas kugu dhacayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالية وايدين سلامة ميل والبؤدني دافيدا كجوكتين ومركلي ولا شيء خروجة هل كان قدابنا يسانا ويخرج أوفيشيال وجوهرين هذا جنال كعصب تاي سبسكرايب صار هذا هورنا ولا جوك تقيب تلاقي نقدس فريم محقبتانكم تيجنا قريب سوري دواد ولا ليه قالية وحافلها يسناني وعافمات قبلين كوكو صولابتين هذيكو عافمات قبتين يكوكو صولابتين kusoo dhawaada gacmo furan niyad saafiya aad iyo aad idinkugu xiisay marka intaas laga soo gudbo maanta maxay rabtaa walaashiina khruujina ka hadasho sida fiidiyowga hordhiciisa baa u soo aragteen walaalahayga qaaliga wax kale maaha waa walaashayda Sumayo ayaa fiidiyow soo duubtay fiidiyow iyadoo aad iyo aad u qiireysan ama murugo aad iyo aad u weyn wajigeeda ka muuqato iyo hadalkeedaba sida adikaba cabiri kartiin walaalahayga qaaliga aad iyo aad ayaa ugu naxay waana ka aamusi waayay ayaantan waa ogtihiin fiidiyow waa soo geli waayay waa caajisanay laakiin markaa arkay walaashayda murugta ka muuqato waa ka aamusi waayay waxaan jeclaystay inaan niyad u dejiyo oo la qaybsado murugada inkastoo oo hooyo qalbigeeda aad u jilicsan yahay murugadan ay dareemayso hada ayada hooyo wax ma dhaanto sababtoo ay caloosheeda ayaa wax lagu beeray laakiin ilaahaygi ayada uumay bila aadanka dhan uuntay iyo dunidaneeti ayaa ka jeclaaday alxamdulillaah waa meel loo wala jeedo asiga cunuga saqiir ayuu ahaa hada dhow leebay ahayd wax yar oo bilo lay ahaayeen ama bil camal ama isbuucyo laakiin ilaahay ayaa ka jeclaaday walaashayda macaan adiga sidii hadda iyadaba ay ka dhawaajisay inuu alla ka jeclaaday jaceylka bini'aadankana oo jaceylka alla ka weyn yahay alxamdulillaah walaashayda macaan ilaahay niyadda ha kuu dejiyo hooyo xanuunka ay dareemayso waa la dareemaynaa sababtoo qofkii wax dhalay unbaa dareemi kara xanuunka hooyada ubadkeeda inay dhibaato ka gaarto ma ogolo hooyo aad iyo aad ay u jilicsan tahay mar walbo rafaad walbo ee dunidaneeti ay u maraysaa si ilmaheeda u ilaaliso marka hooyo aad iyo aad horta hooyo maasha Allah aad iyo aad ayay u wanaagsan jannada Ilaahay ugu bishaareeyo hooyo marka waxaan leeyahay walaashayda macaan ilaahay niyadaada ha kuu qaboojiyo qalbigaagana Allah ha kuu dejiyo insha Allah ubad kale Allah wuu ku sii doonaa ubad aad iyo aad u fara badan oo baariyaal oo adiga ku anfici doono insha Allah oo aad iyo aad baari u ilaahay ha kuu sahlo ilaahay ha ku siiyo walaashayda macaan aad iyo aad ayaa kula qaybsanaynaa murugada waana kula dareemaynaa hooyo oo ilmaheeda adduunka iyadoona ku arkin weysay insha Allah saqiir aakhira Allah kaaga dhigo ilaahaygi ku siiye ayaa haddana ku siinaa insha Allah ilaahay ayaa kuu baryeynaa ubad baariya oo qeyr qabo oo dhabta aa saarato ilaahay ha ku siiyo intii hooyo oo dhibaataysan ilaahay dhibka ka kor qaada iyo murugada qof walbo
oo dhibaataysan Ilaahay dhibka ka qaado, dhibaatadiisa farxad Ilaahay ugu bedelo. Ummadeena Soomaaliyeed dhammaantiin waxaa filayaa in isku ducey doontiin insha Allah. Qofka walaalka oo murugaysan murugada la qaybsan doontiin oo maasha Allah commentiga oo ducey u qori doontiin insha Allah. Aniga qaybta commentiga dhammaan waxaa ka dhigtiin duco insha Allah. walaashiina waa gabar aad iyo aad u da'yar, u duceeyay insha Allah inuu Ilaahay siiyo inta ay jeceshahay oo ubad oo baari waliba ubad kaligiis laguma duceysto, ubad baari insha Allah oo aad iyo aad u anfaco u duceeya walaalahayga qaaliga sidaas ayaa noo baran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.